kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibadeena qiimaha badan oo dhammaantiinba meel walba aad ku sugan tihiin. halkan waa janalka wararka ee Samakaab TV. mar walbana waxaynu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay dalka gudihiisa ka dhacay akhbaaraadka kale ee ka qarsoon. taariikhdu waxa ay sheegaysaa 1 bisha Oktoobar sanadka 2019 waana Talaado. qodobada aan sida gaarka u eegi doona waxaa ka mid ah war degdeg ah oo goordhow soo dhacay. waxa uu sheegaya inuu geeriyooday afayeenkii ururka Al-Shabaab kadib dhaawac ka soo gaaray dagaal uu la galay ciidanka dawladda. xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira intooda badan waxa ay ku dhawaaqeen inay isbahaysi cusub samaysanayaan. waxa ay doonayaan in doorashada soo socota ay hal garab noqdaan si ay u adkaadaan madaxweyne Farmaajo. xariga Cabdirasiid Janan wasiirkii amniga ee Jubbaland waxa uu jirsaday bil. maxaa daaha gadaashiisa ka socda waan eegi doonaa. shirka madasha oo ka furmay Muqdisho iyadoona aysan ka qayb galaynin dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. madaxweyne Danine sharuud adag ayuu ku xiray shirkaas inuu ka qayb galo. Axmed Madoobe ayuu doonaya inuu ka soo qayb galo. ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobadaas oo dhammaystiran. fadlan haddii aad janaalkeena ku cusubtaana subscribe inoo saaro oo gambaleelkana taabo si markasta aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan. ugu horeyntiina barnaamijkeena haddiinu ku bilaabno war degdeg ah oo goordhow soo dhacay. waxa uu sheegayaa inuu geeriyooday afayeenkii ururka Al-Shabaab kaasoo dhaawac daran uu ka soo gaaray dagaal maleeshiyaad isaga uu watay iyo ciidanka dawladda dhex maray. dagaalkaas ayaana ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen dhibaatooyinka ay ku hayaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka degan iyo kuwa kale ee ku hoos nool. qof ku nool degmada Jannaale magaciisana aan qarinay ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka Al-Shabaab ay dadka deegaanada ay maamulaal ku nool ay ku hayaan ay kor u qaadeen. waxaana uu sheegay in cadaadiska Al-Shabaab uu kordhay kadib markii dadka Jannaale degan ay ka war heleen in uu geeriyooday afayeenkii ururka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere kaas oo mar sii horeysay ku dhaawacmay dagaal ay ciidanka dawladdu la galeen maleeshiyaad uu watay iyaga oo ku sugan deegaan hoos yimaada degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cali Dheere ayaa markaas dhaawiciisa waxaa la sheegay inuu ahay mid aad u daran waxaana loo qaaday qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose oo Al-Shabaabku ay maamulaan. Al-Shabaab kama aysan hadlin dhaawaca balse xog hoose oo Al-Shabaabka dhexdooda laga helay ayaa waxa ay sheegaysaa inuu geeriyooday afayeenkoodii Al-Shabaab kaas oo muddo dheer ahay afayeenka ururkaasi. arrinkan ayaa waxa ay sababtay inay cadaadis fara badan ku sameeyaan dadka degan deegaanada ay ku nool yihiin gaar ahaan kuwa beeraleyda. shaki xoogan ayayna ka qabaan inay ciidanka dawladda garab siinayaan. waa tahay magaalada Muqdishona xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka waxa ay ku dhawaaqeen inay samaysanayaan isbahaysi cusub. saddexdii maalin ee u dambeysay waxaa magaalada Muqdisho ka socday kulamo xasaasi ah oo ay yeelanayeen qaar ka mid ah madaxdii dalka soo maray kuwaasoo haatan xisbiyo siyaasadeed samaystay. madaxda kulamadaas u socday oo isku raacay inay isbahaysi samaystaan ayaa dhammaantood waxa ay yihiin kuwa mucaarad ah. xisbiyada samaysanaya isbahaysiga waxa ay kala yihiin xisbiga Wadajir, Himilo Qaran, UPD, Ilays iyo kuwa kale. waxaana la filayaa inay mar dhow soo saaraan bayaan wadajir ah oo ga hadlayaan siyaasadda dalka. midowga xisbiyadan ayaa waxa u muuqdaa mid loogu diyaar garoobayo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka 2020-2021. waxaana jira in maalmihii la soo dhaafay uu xoogaa jiray jahawareer siyaasadeed kadib markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed loo diiday inuu u dhoofo dhanka magaalada Kismaayo halkaas uu qorsheynayo inuu ka qayb galo caleemasaarka Axmed Madoobe oo dawladda ay aaminsan tahay inuu isagu isdoortay aad ay u mucaaradsan tahay. si kastaba ha ahaatee xisbiyadan mucaaradka ah ayaa maalmahanba kulamo isdaba joog ah magaalada ka waday. hagaag haatanna waxaan eegi doonaa warbixin ku saabsan xariga Cabdirasiid Janan bil ayuu jirsaday. haddaba daaha gadaashiisa maxaa ka socda. maalin axad ah 1 bisha Sebtembar sanadka 2019 ayay ahayd markii uu si rasmi ah u soo shaac baxay in Cabdirasiid Janan wasiirkii amniga ee Jubbaland laga qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. qabashadiisa ayaa timid kadib markii diyaaradaha tagayay kana soo baxay Kismaayo lagu amray inay soo maraan magaalada Muqdisho. Janan oo ka yimid degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa waxa uu ku sii jeeday Addis Ababa balse duulimaadka ayaa waxa uu ku qasbanay inuu Muqdisho soo maro. booliiska federaalka ee Soomaaliya ayaa saacado kadib shaaciyay in Janan loo haysto dambiyo culus isla markaana baaritaano la xiriira eedeymahaasi ay ku sameyn doonaan kadibna ay u gudbin doonaan maxkamadda ku shaqada leh si dacwadiisa loo qaado. maamulkiisa oo falcelinta koowaad qabashadiisa shaki fara badan geliyay ayaa waxa ay cambaareen falkaasi lagula dhaqmay mas'uulka xasaanada huwan waxaana ay ku sifeeyeen xarigiisa mid sharciga baalmarsan.
xariga janan oo biljirsaday ayaa holac ku sii shiday khilaafka siyaasadeed ee villa Soomaaliya iyo Kismaayo kaas oo salka ku haya madaxtinimada Axmed Madoobe oo doorashada maamulkaasi la aaminsan yahay inuu isagu qabsaday bil kadib daaha gadaashiisa. haddaba maxaa ka socda sida ay dhigayaan shuruucda caalamka iyo midda dalka u yaala? muwaadinka waxaa waajib ah in muddo ku siman 24 saacadood maxkamadda lagu soo taago haddii la soo qabto markaas oo dambiye lagu eedeynayo. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku dhawaaqday in xariga janan uu yahay mid sax ah, dambiye dagaalna uu galay. weliba waxa ay codsatay in si degdeg ah loo maxkamadeeyo. bil kadib laamaha ammaanka federaalka weli si rasmi ah ma aysan u shaacin dacwadda janan loo haysto. si la mid ah maxkamad lama soo taagin, taas oo wariyaasha iyo dadweynaha kaleba aysan ka qayb gelin. iskaba daaya in maxkamad la soo taago, xeer raaliyaha qaranka ayaa bishii Abriil ee sanadkan waxa uu ku dhawaaqay in janan aysan jirin wax dacwadda loo haysto, isla markaana lagu waayay eedeymihii loo haystay. mar sii horeysay ayaana janan la soo dacweeyey. madaxweynaha Jubbaland ayaa villa Soomaaliya dhowr mar xiriir la soo sameeyey isagoo isku dayay inuu faahfaahin dheeraad ah ka helo sababta janan loo haysto, balse waxaa la aaminsan yahay inuusan helin jawaabta uu doonayay. odayaal ka socda beesha uu janan ka soo jeedo ayaa dhowr mar u tagay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyagoona doonay inay xaaladda qaboojiyaan, naftirkooduna waa ay gul daraysteen. waa tahay mahaatanna magaalada Muqdisho shirka madasha ee caalamiga ah ayaa ka furmay. faahfaahinno kala duwan ayaana shirkaas ka soo baxaya, waxaana ka qaybgalaynin Jubbaland iyo Puntland. shirweynaha caalamiga ee iskaashiga Soomaaliya ayaa waxa uu si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho. shirka oo ah mid ballaaran ayaa waxaa daahfuray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. sidoo kale shirka ayaa waxaa ka qaybgalaya in ka badan 50 wakiilo oo ka tan dowladood ka socda, mas'uuliin ka tirsan dowladda iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada. wararka ayaa sheegay in shirka ka furmay magaalada Muqdisho aysan ka qaybgalaynin madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Saciid Danni ayaa qaadacay shirkan, halka Axmed Madoobena aysan dowladdu ka casuumin maadaama uu kala dhaxeeyo khilaaf ka dhashay doorashadii Kismaayo ka dhacday. shirkan iskaashiga oo ah mid heer caalami ah ayaa waxa uu socon doonaa 2 maalin, iyadoona diiradda lagu saarayo dhaqaalaha, amniga, siyaasadda, cadaaladda iyo arrimo kale. waa markii u horeysay oo shirkan lagu qabanayo gudaha magaalada Muqdisho, iyadoona mararka sii horeysay lagu qaban jiray wadamada reer galbeedka. labadii mar ee la soo dhaafay waxaa lagu kala qabtay dalalka England iyo sidoo kale Belgiumka. haddaba shirkaas inuu ka qayb galo Saciid Danni ayaa shuruud uga dhigay in lagu casuumo madaxweynaha maamulka Jubbaland, kaas oo shirka aysan dowladdu ka casuumin. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa qaadacay shirweynaha caalamiga ah ee iskaashiga Soomaaliya, kaas oo maanta ka furmay caasimadda. Danni ayaa shuruud adag ku xiray inuu shirkaasi ka qayb galo, isagoo dalbaday in lagu casuumo madaxweynaha la doortay ee Jubbaland Axmed Madoobe oo isagu uu taageero weyn siiyo. shirkaasi ayaana lagu casuumin Axmed Madoobe, balse warbaahinta ayaa ogaatay in dowladda shirkaasi ay ku marti qaaday wasiirka maaliyadda ee Jubbaland. sidoo kale shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, kuwaasoo xiriir wanaagsan la leh dowladda dhexe, halka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo dhowaan ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiiskii uu dowladda la galay shaki naftirkiisa laga gelinayo, balse dowladda xubno kale oo ka tirsan Galmudug si dhowna ay xiriir ula leedahay ayay ku marti qaaday. guud ahaanna saaxiibadeena qiimaha badan oo barnaamijkeennii faaqidaadda wararka intaas ayaan ku soo afmeeraynaa. fadlan waxaan kaa codsanaynaa haddii aad janaalkeenna ku cusub tahay inaad sabskaraab inoo saarto, gabaleelkana aad taabato si markasta aad u noqoto qofka ugu horreeya ee wararkeenna iyo warbixinadeenna ay soo gaaraan. fadlan muuqaalkana saaxiibadaada kale la sii wadaag si ay u sii daawadaan. nabadgelyo ammaano aan la daawado meel kastoo aad dunida kaga sugan tahay.